السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalahayga qaaliga waa idin salaamay dhammaan meel walba aad dunida ka joogteen fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena Huda Binti Mukhtaar subscribe like share comment nagu caawi codsi waa qasab maaha kaamilowday kalaamkii wuu dhaboobay kaliya la farxadunka aaday dadku ku kaceen jeer qosol maalintaada walaalahayga qaaliga ee maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago qiso wiilashay ka shidan tahay maalmahaane qiso wiil ku dhacday wuxuu dhahay wiilkan waxaan joogaa dalka masar u dhashay 27 jir aan ahay waxaan ka shaqeeyaa biibito shaah geegeeya ahay marka wuxuu dhahay waxaan qaataa mushaar aad u yar 600 oo giney lacagta masar 600 aan qaataa hoo dhahay marka wuxuu yiri anigu waxaan jeclahay aan aad u jeclahay dhahay ilmaha cunug hadda arkaniidan waxaa iska dhahaa dhahay maalin walba ilaahayow itus ano aabe marka gabadha la sheekaystaa hoo dhahay aan saaxiibanahay gabadhan wuxuu yiri dalabaadkeeda aad u badan yahay maba cajibin inuu dhahay shaqada aan ka shaqeeyo waxay leedahay shaqadan lacagta yar shaqadan aan maxaa dhahay isha wax laga dheefeenin 600 waxaa laga yaabaa aniga family sabool ahaan ka dhashay waxbarashana ma dhameynin oo dhahay waxaa laga yaabaa inaa familygayga wax yar aan ka siiyo inta kale iyada ay shopping ka dhigato mar walbana waxay isku dayeen oo dhahay shaqada aan ka shaqeeyo shaqo ka lacag badan inay ii raadiso mar walba waxay leedahay meelaha oo waxay tagay oo shaqooyinka lacagta badan ay soo ogaaneen ilaahay amarkiis waxay soo aragto dhahay meel oo shaqadeeda ay tahay 1500 mushaarkeedu oo yahay 1500 oo shaqaale laga rabo marka waxa dhahay aniga iyo wiil aan saaxiibnahay oo xaafad iskula dhalanay oo iskula barbaarnay waxbarashana aan dhameynin oo dhahay labadeenaba waxaan dalbanay tababar ciidan yani jeeshay dhahan ayaga carabta tababar ciidan aan dalbanay marka wuxuu yiri dalabka intuu noo maqaya jawaabtana laga soo siinayo meelahan aan ka shaqaysanaa aniga wuxuu dhahay shaqo walba arka waa ka shaqeeyaa mar waxaan ka shaqeynaa oo dhahay joornaalada oo inta la wasaco hadda waa la ilbaxay joornaal interneta joogee joornaalada xaafadaha la geegeynayo subaxdii loo dheelmanayo waa ka shaqeynaa oo dhahay shaahiga biibitooyinka waa geegeynaa biibitada haddaan shaqo ka waay mid kaleetaan ka raadsanaa alxamdulilah nolosheedana waa iskaga qanacsan oo dhahay marka waa ii imaatay waxay dhahday shaqadan daruuri waa inaad soo raajicisid ilaahay markiis shaqada 1500 oo mushaarkeeda uu yahay anaa u socdo dhahay shaqadii maalin oo fasax ka qaatay biibitadii oo shaqada u sii socdo aa gabar baabuur wadato baabuur jug igu sii soo dhahay indhaha waxaan kala qaadaa anoo isbitaalka jiifo marka gabadhi baabuurka igu dhufatay igama cararin oo dhahay way igeysay isbitaalka iida igeysay gabar aan aqoonin ay ag taagan oo dhahay marka indhaha kala qaaday lugta midigta ina waa ka go'anay subxaanallah qadar ilaahay waay marka ilaahay markiis wuxuu dhahay marka gabadhi aan shukaansanayo aan saaxiib kala ahay waxay soo maqashay dhibka igu dhacay idoo ordaysa isbitaalka imaatay waxay ogaatay inuu maxaa dhahaa shilka aan galay lug leega gooyay yani xaadis aan galay oo lugna leega gooyay ay soo ogaato dhahay markay imaatay oo dhahay isbitaalka ay aragtay inay lugka aan ka go'anahay waxay dhahday iga raali noqo maxaa dhahaa ma kula wadi kari nolosha yani ma kula qaybsan kari iga raali noqo qalaas way iga danaysato dhahay ilaahay amarkiis wuxuu yiri isbitaalka anoo ku jiro oo gabadhi isbitaalka ii keentay oo baabuurka igu dhufatay ii baxnaaninayso ii xanaaneynayso lacagta isbitaalkana iida bixinayso laano aniga familygayga sabool waaye lacag isbitaal xataa ma awoodaan waxaa dhacdo yiri in oo meeshii tababarka ciidanka aan ka dalbanay jawaabna la soo siiyey aniga waxaa lay dhaho yiri ma lagu qaadan karo maxaa yeele waa dhaawacan tahay lugaa kaa go'an wiilkii aan saaxiibka la ahayaa maxaa la dhahaa isheeg aa la waday wiilkii aa la wadow dhahay muddo aa la jooga isbitaalka gabadhii ay soo bixisa gurigeyna la ikeeno gurigeyna haddii la ikeeno wuxuu yiri welina gabadhii ay xanaaneynaysa isoo kormeeraysa gabadha wuxuu yiri nin lacag lahaa dhalay shirkado adduunya leeyihiin maasha allah wuxuu yiri subxaanallah gabadhi qof kibir badan ma ahan yacni ma iga faanin oo dhahay inta qofka haddaa xataa daaweynaysid intaa la daawaya laga taga haddii aad dhibaato u geysatay xataa wuxuu yiri gabadhi ani meeshii igama dhaqaaqin muddo kadib waxaa la ii sheego yiri gabadhi aan maxaa dhahaa saaxiib kale ahay in la guursado oo nin lacag la ay guursatay kadib waa la joogay waxaa la ii sheego dhahay inuu dhintay wiilkii aan saaxiib kale ahay oo ku dhintoo dhahay meesha tababarka ciidanka oo meel oo waxaa jirta markii oo dadka la tababaraayo meel oo hubka bambooyinka iyo qoryaha lagu aruuriya aa qaraxday meeshaasoo ku dhintay wiilkii ilaahay oo naxariisto marka wuxuu yiri
waxaan dhaho yidhi yaa rabbi aniga maxaa sameeyey maxaa dembi ahoon galoo layga goynaa wax walbo aan jeclahay waa iga qaadato dhahay yaa allah gabadhaan jeclahay waa layga guursaday wiilkii saaxiibkay ahay maxaa la dhahaa isheeg waa kaas waa dhintay aniga lugaa iga go'day talow aniga yaan wax ka haleeyey muddo haddii la joogo dhahay ilaahay amarkiisa waxaa la ii sheego dhahay inay istagaaleen gabadhii aan shukaansanayay ninkii guursaday iyada inay istagaaleen sababta isku dagaaleenna ay tahay inay iyada waxba dhalaynin ay caqiim tahay gabadhan isbitaal kasta haddii la geey ma dhalaysaa lah gabadhii iyo ninkina way kala tageen subxaan allah muddaa la joogo waa la iska joogo dhahay ila nolosha waa iska soconay xayaa maanta waqaf cinda axad nolosha waa iska soconay muddo haddii la jooge aniga aan fiicnaado dhahay aan bir ku boodaayo noloshaydina aan iskala qabsaday aan caadi ahay waxaa dhacdoo yidhi in ay gabadhii aniga baabuurka igu dhufatay ee iga dalbatay inaan guursado markaasaa waxaan dhaho yidhi fiiri anoo 6 qabo oo shaqayn karo aan lacag yar ku shaqaynayo dhahay hadda inteeba shaqo ka helayo dhahay haddeertaa waa ujeedaa lugtaaba iga go-ane markaasay waxay dhahday shirkadaha aabahii maaragtay shirkad ka mid aa ka shaqayne maxaa lahaa xamaalina ma noqonaysid dadka wax qaadqaadana ma noqonaysid warqad iyo qalin lee ku shaqayne qaybta xisaabiyaha fariisane waxuu dhahay yacni waa isku naxo dhahay horta marka ugu horreyso laakiin waa farxay ilaahayna waxaa weydiisto dhahay inuu isaamaxo maxaa yeele dembi weynaa gala waxaan dhahay yaa rabbi ani maxaan kaa haleeyey waxaan jeclaay oo dhan waa iga qaadatay gabadhii aan jeclaay waa layga guursaday wiilkii saaxiibkay ahayna waa dhintay anigana lugaan ka go-ay marka waxaan dhaho yidhi yaa rabbi isaamax cimri jadiida ii qortou dhahay alxamdulilah rabbialcaalamiin nolosheedana afdala ilaahay oo aa iigu badashay yacni noloshii aan ku jiro mid ka fiican aa isiisay hadda wuxuu dhahay booskaas haddaan joogi lahay oo wiilkaas camalaan u dhiman lahay alxamdulilah ilaahay oo rabbi oo raxmaan oo adaa ma hadda iskale isaamax haddaan guursan lahay gabadhaasne waxba iima dhali lahayn maxaa yeele aniga waxaan jeclahay ilmahan jeclahay marka wuxuu dhahay kul shar fiiha waraaha kheyr shar walbo kheyraa ka dambeeyo marka wuxuu yidhi aniga noloshaydan qisadan igu dhacdo wuxuu yidhi magacaa u bixiya ciwaanka u bixiya waxay too dhahay firaaqa bilaa xuduud yacni kala fogaanshaha aan waqtiga lahayn aan xadka lahayn marka wuxuu dhahay qadarallahu maashaa faclaa igu dhacday laakiin alxamdulilah haddii ilaahay wax iga naagisay wax kaloo iigu siyaadiyey cimri jadiida la ii qoray nolosha way qurux badan tahay shalay faqiira ahay maanta alxamdulilah taajira ahay nolol wanaagsanaa ku jiraa ilaahayna waa ii gargaaray gabadhiiyaan guursaday ubadaa ilaahay iga siiyey alxamdulilah rabbialcaalamiin marka asxaabteyda qaaliga anna waxaa jeclaystay qisooyinkaas iyo qisooyin lamid ah oo kaleeta xataa haddaa meel kasoo arko inaa idinla wadaagaan jeclahay fadlan haddii aad ka hesha videoga subscribe like share comment inagu caawi waa mahadsantihiin